boqol cunto iyo cunto. cunto kariska ma ka heshaa? haddii jawaabtaadu haa tahay, waxaa degmada Kismaayo dhawaan ay macallimad Fartuun oo ah qabiir dhanka cunto karinta ah ka daahfuraysa barnaamij loogu magac daray boqol cunto iyo cunto, kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu baro dumarka iyo ragga u baahan cunto karinta si qofku uu u noqdo cunto kariye wanaagsan. Fartuun oo hadda baraka ah xarun cunto karin oo ku taala caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa doonayso in ay marto dhammaan gobolada dalka iyadoo u faa'iideynayso dadka. Kismaayo waxa ay noqotay goobtii ugu horeysay ee fursadan qaaliga ah hesho. waxyaabaha la isbarayo waxay isugu jiraan 1 boqol cunto oo kala nooc ah, 2 samaynta toortooyinka aroosyada iyo xafladaha, 3 cabitaanada kala nooca ah ee dalka iyo dibaddaba. barashada xirfadan kadib waxaanu doonaynaa inaad shaqaysato isla markaana noloshaada cunto macaan oo faraisgoosi ah cuntid. xaqiiqdii waxaad helaysaa talooyin ku filan sida cunto dhadhan fiican leh loo sameeyo. cunto kariye waa xirfadle leh tababar sax ah kuna xeel dheer dhammaan dhinacyada diyaarinta cuntada. haddaba fursadda koorsadan cunto karinta oo qaadanayso oo muddo bil ah ayaa isdiiwaangelinteeda bilaabanaysa 20 bishan January ee sanadkan. sidoo kale shakhsiga doonayo inuu barto ayaa bixinaya lacag isdiiwaangelin ah oo dhan $15. wixii ka dambeeya intaasna waa bilaash. markuu dhammaysto waxaa la siin doonaa shahaado ka turjumayso xirfadiisa cunto karinta. waxa kaliya ee aad hadda u baahan tahay waa inaad bilowdid xirfadahaaga cunto karinta. jaaniskan ayaa ka dhigan mid dahabi ah oo soo martay gabdhaha iyo wiilasha iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee barnaamij noocan oo kale ah laga suurageliyo Jubbaland guud ahaan. casharada cunto karinta waxaa lagu bixin doonaa gudaha xarunta Inji KTI kasoo horjeedka Hotel Tawakal. wixii faahfaahin kala xiriir telefoon lambarada kala ah eber 6769694 ama eber 6 5 21 76 89.